waan idin salaamay waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ku daawan doontaan waxyaabo mucjiso ah oo dawladda Shiinaha ay soo saartay. dawladda Shiinaha iyo dadka Shiinaha waxa adduunka looga yaqaanaa dad takhasus u leh farsamada gacanta oo ay Soomaalidu ka faanto. China waxay soo saaraan waxyaabo badan oo aad aqoon u leedihiin, laakiin muuqaalkan waxaan si gooni ugu khasisi doonaa waxyaabo la yaab leh oo sanadahan dambe ay China soo saartay adduunka intiisa kalena ay uga duwan tahay. waxyaabaha ay soo saareen China waxa kamid ah headphone lala yaabay. headphone-ka adduunka oo dhan laba xabba ayaa la sameeyaa oo labada dhagood lagu xiro, laakiin ayagu waxay sameeyeen headphone lagu xirayo wajiga isla markaana loo maqlayo sida caadiga ah ee headphone-ada kale loo maqlo. waa arrin la yaab leh. waxay kaloo ay sameeyeen diblad indhaha lagula shubayo daawooyinka oo kiyaalaha korkiisa oo si caadi ah indhaha loogu shubayo. ruuxa indhaha la ayaa isku shubayo asagoo aan u baahnayn cid kale in ay caawiso oo ay daawada indhaha ugu shubto. dadka Shiineeska ayaa ka cabsanaya cudurrada la isqaadsiiyo neefta ama hawada la isku qaadsiiyo, waxayna badanaa sanka ay ku soo xirtaan marada sanka lagu xirto si aanu kugu dhicin ama uusan ugu dhicin cudurrada neefta la isku qaadsiiyo. laakiin nin Shiineesa ayaa fakaray waxa uu soo saaray arrin lala yaabay. warqadaha masqulaha loo isticmaalo oo sankana lagu diifsado oo tishka loo yaqaano ayuu sameeyay bahal madaxa lagu xirayo oo sanka lagu diifsanayo, taasi oo caawinayso qofka cudurka qaba si caadi ah baashi oo madaxa ugu xiran inuu wadada ula socdo. caruurta yaryarka waqtiga ay ku jiraan sanadka hore marba dhinac ay u socdaan, xabadka ay ku socdaan. nin Shiineesa ayaa soo alifay dhar loo geliyo gacmaha iyo lugahana suuf ku leh si aysan lugaha iyo gacmaha ugu marmurxin, taasi oo murugta ka bixinayo waalidka caruurta dhalay oo ka walwalaya inay caruurtooda gacmaha iyo lugaha ay ka murxaan. nin Shiineesa ayaa arrin kale la yaab leh sameeyay kadib markuu sameeyay sameecado waaweyn oo dhagaha si caadi loogu xirto, taasi oo caawinaysa dadka maqalka uu ku yar yahay. kuwaasi ayaa ka maarmaya mashiinada dhagaha lagu xirto in ay dhagaha ku xirtaan ama ay isticmaalaan mashiinadaasi oo la sheegay inay radioactive leeyihiin, kuwaasi oo dhibaato kale dhagaha u keeni kara ama madaxa. midda kale oo la yaab ka leh waa mashiin yar oo tarmuuska shaaha lagu shubto u eg, taasi oo si sahlan aad ugu hagaajinayso baastada noocyo kala duwan, baasta dhaadheer, baasta fino, midda rabtidba waa ku hagaajin kartaa ayadoo wax koronto ayna isticmaalayn. waa caadi gaariga caruurta yaryar lagu kaxeeyo adduunka oo dhan ayaana laga isticmaalaa marka waalidka magaalada uu ka soo dukaameysanayo ama dalxiis ay u wada aadayaan labada waalid. mid Shiineesa ayaa la yimid arrin la yaab leh kadib gaariga caruurta lagu kaxeeyo markuu meesha gadaale ugu sameeyay meel lugta uu saarto waalidka, kaasi oo si sahlan caruurta iyo waalidkaba ay u raaci karaan. dadka qaarkood waxaa ku jira ruux aan hurdada ka soo dhicin inuu ruux kale uu ku dhago marka uu sariirta seexanayo, taasi ay hurdada uga soo dhacaysaa. ruuxa uu ku dhagayo waalidkiisa noqdo walaalkiis, xaaskiisa ama naagtoo qabo, qofba ruux ayuu ku dhagaa marka uu seexanayo, hurdana kama soo dhacdo. waa dadka qaar caadadooda. Shiinees ayaa u fikiray haddii ruuxaasi uu safar ka aado maxaad ku hurdaysaa. bahal yar ayuu sameeyey sida bini'aadmiga u eg, ruuxa uu ku dhagayo oo ku seexanayo aabiis buu moodaa ama hooyadiis ayuu moodaa, xaaskiisa ayuu moodaa ama ninkeeda ayay moodaa. sidaas ayay hurdadan uga imaanaysaa. ruuxa markuu magaalada u baxayo isagoo aan gaari wadan oo ay jirto qorrax daran ama roob u da'ayo, wuxuu ku qasban yahay in uu dallad hore u sii qaato uu gacanta ku qabsado. mid Shiineesa ayaa fakaray si dalladaas gacanta loogu qaadanayo looga badbaado. booskii nakatinka ama garabaatiga ayuu dallad ku bedelay, dalladaasi oo nakatin ku noqonayso ama garabaati ku noqonayso isla markaasina dallad ku noqonayso.